السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan salaamayaa dhammaan ardayda ku xiran Aqoonsoor Online Academy. sidoo kale waxaan salaamayaa waalidiinta ay ardaydu dhigtaan Aqoonsoor Online Academy. waxaan sidaas la mid ah salaamayaa dhammaan teamka iyo kooxda Aqoonsoor Online Academy iyo dhammaan bulshooyinka nagu xiran ee sida tooska ah oo la socota. maanta waxaan idin sidaa bishaaro ah barnaamij aan ugu talagalay inay ka faa'iideystaan ardayda waalidiinta iyo dhammaan bulshooyinka kale ee nagu xiran. barnaamijkan waxaan ugu talagalay inaan uga faa'iideyno aan ku soo gudbino waxyaabo barnaamijyo tusaalayaal u noqon kara ardayda iyo waalidiinta, sidoo kale u noqon kara tilmaan iyo hage xagga waxbarashada, xagga dadaalkooda iyo sidii ay ugu fududaan lahayd hayaanka dheer ay ku jiraan ee dhanka waxbarashada. waxaynu ognahay in arday la noqdaa ama in wax la bartaa inay tahay shaqo aad u adag oo u baahan in la iska kaashado waalid, macallimiin iyo ardayba. ardaydeenu waxa weeye waa u bixi dalka, waxay u baahan yihiin inay helaan talooyin, waxay sidoo kale u baahan yihiin inay helaan tusaale ay ku daydaan, waxay u baahan yihiin inay helaan cid hagta si ay uga midho dhaliyaan himiladooda, si ay u gaadhaan yoolkooda, si ay uga dhabeeyaan hawsha aadka u adag ee waxbarashada ay ku jiraan. waalidku sidoo kale waxay tacab badan geliyaan, ay xoog iyo xoolaba ay u huraan si ay ubadkoodu ay wax u baran lahaayeen. sidaas la mid ah waxay macallimiintu iyaguna ay waqti badan iyo tamar badan ay ku bixiyaan sidii ardayda ay gacanta ku hayaan ee ay wax barayaan ee ay hoggaanka u hayaan iyaguna ay noqon lahaayeen dad horumar iyo guul la taaban karo gaadha. haddaba waxaan mar walba u baahannahay inaynu dhiirigelino ardaydeena, waxaan mar walba u baahannahay inaynu ardaydeena aynu garab istaagno xilliyada caqabaduhu ay jiraan inta ay ku jiraan hayaankan dheer ee waxbarasho. waxay u baahan yihiin tusaale ay ku daydaan si ay guul la taaban karo ay u gaadhaan. barnaamijkan Aqoonsoor Online Academy uu maanta idin bilaabi doono waa barnaamij si taxanaa uga bixi doona Aqoonsoor Online Academy. waa barnaamij ugu yaraan isbuucii 2 jeer ilaa 3 jeer ka bixi doona Aqoonsoor Online Academy. waa barnaamij aan ugu talagalay inay ardaydu ay ka faa'iideystaan, waalidiintu sidoo kale ay ka faa'iideystaan, macallimiinta ardayda waxbarashada sidoo kale ay ka faa'iideystaan. waa barnaamij aan ugu talagalay ardaydu inay helaan dhiirigelin iyo ruux ay ku noolaadaan maalin walba, waajibaadkooda shaqona ay kaga dhabeeyaan. barnaamijkan la magac baxay Maxaad Akhriday waxaan ugu talagalay inaanu ardayda ugu soo gudbino sheekooyin, tusaalayaal iyo hormuudka dadka bulshada adduunka ku nool cid kasta oo ay tahay, si ay uga helaan dhiirigelin, si ay uga helaan xeelado ay hayaankooda waxbarasho ay u sahasha. Maxaad akhriday waxaan ku soo bandhigi doonaa dad guuleystay, waxaan ku soo bandhigi doonaa dad tusaale u noqday bulshada adduunka, waxaan ku soo bandhigi doonaa buugaag aad iyo aad faa'iido ugu leh ardayda iyo waalidiinta iyo macallimiinta. barnaamijkan qaybtiisa koowaad waxaan kaga hadli doonaa buug aad iyo aad u faa'iido badan, khaas ahaan waalidka u faa'iido badan iyo ardayda. buuggaas waa buug aad aynu uga faa'iidi doono xeeladaha loo dhiirigeliyo ardayda, sida ardayda loo manage gareeyo ama ubadka waxaynoo baranaya sida loogu manage gareeyo ama loogu maamulo waqtigooda. waxaynu sidoo kale buuggan ka faa'iidi doonaa oo ardayda iyo waalidiintuba ay ka faa'iidi doonaan sida aan marnaba la isu dhiibin. wax kasta oo ka hor yimaada, carqalad kasta oo ku soo waajahda, sida aan marnaba la isu dhiibin. waxaynu sidoo kale ka baran doonaa inay aad u wanaagsan tahay mar walba haddaynu waalid nahay, haddaynu macallimiin nahayba iyo haddaynu arday nahayba inaynu dhiirigelino oo garab istaagno
arday ka mid ah ardaydeena haddii ay soo wajahdo carqalad iyo dhibaato ee marnaba aanayno habboonayn inaynu ardaydeena niyad jabino ama niyadda ka dilno haddaba xalqadda koowaad waxaan kaga hadli doonaa haddii waqtigu inoo saamaxo oo alla inoo ogolaado sidee looga gudbaa marxaladaha aadka u adag buuggan wuxuu aad u falanqayn doonaa oo aynu kaga hadli doonaa sidee marka ay hawluhu adkaadaan xaaladuhu markay adkaadaan inta lagu guda jiro xilliga waxbarasho ee uu ardaygu ku guda jiro waalidow ama ardayo ay xaaladdu kuga adkaato sidee baa loo waajahaa xaaladaha adag maxaa lagaaga baahan yahay inaad la timaado macallinow maxaa lagaaga baahan yahay ardaygaaga inaad ku caawiso sidee baad si isu garab istaagi kartaa oo aad garab u siin kartaa ardaygaaga ay soo waajaheen carqaladaha hamogaanin ku xidhno barnaamijka maxaad akhriday isku day adiguna inaad wax akhrido ardayow isku day inaad ka faa'iidaysato barnaamijkan waalidow aadna isku day mar walba ilmahaaga wax baranaya inaad garab istaagto ka war hayso xaaladiisana aad la socoto macallin adiguna waxaad isku daydaa mar walba ardaygaaga inaad garab taagnaato gacan siiso la shaqayso waxaan rajaynayaa inaad barnaamijkan aad ka faa'iidi doontaan wax fara badan saa darteed waxaan rajaynayaa barnaamijkan inaynu ka faa'iidi doono wax fara badan oo nafaheenna iyo ubadkeennaba anfici doonaa mustaqbalka fog guul ayaan idin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu